بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada janalkeena gacmo furan iyo qalbi saafi ah. waa idin soo dhaweynaa Soomaali weyn, waan idin salaamayaa meel walba joogtaan. maalin wanaagsan. maanta mawduuceena wuxuu ku saabsan yahay su'aalo aan idin weydiinayo. su'aalahaaseti oo ah haddii aad ku jawaabtid haa oo jawaabahaaga inta badan ay noqdaan haa, yani waxaa tahay qof inbaas ah, qof waxaa tahay dareenkiisa oo caatifad yahay ayaa tahay. su-aalo waa sii badan yihiin laakiin qayb ka mid ah waay, yani 100% ma noqonayo inaad tahay, waayo 100% su-aalihii loo baahnaa oo dhan ma idin keenin, laakiin qaar ka mid ah waay. laakiin haddii intaan aan idin keenay waxaa waaye 9 su-aal ama 10 su-aal, haddii intaan aan idin keenay aad tiraahid maxay ahaatay haa aad tiraahid, ama 8 ka mid ah ama 7 ka mid ah aad tiraahid haa ay noqoto jawaabtaada, qof waxaa tahay inbaas ah oo caatifadeeda tahay oo emotional ah. marka jawaabta marka aad ka jawaabaysid sida dhabta ah uga jawaab, xataa haddii aadan soo sheegin muhiim maaha, laakiin inaad naftaada ogaatid ayaa muhiimad ay tahay. su-aasha koowaad waxaa waaye ma tahay ruux aan maya dhihi karin? ma tahay qof ay ku adag tahay in uu maya dhaho oo wax walba la weydiisto nacam dhahayo? marka haa iyo maya waa inaad ku jawaabtaa. su-aasha koowaad taas waay. tan labaad inaad samaysid wax walba ay dadka kaa codsadaan adoon dhihi karin maya. tan labaad iyo tan koowaad oo isku dhow yihiin, laakiin tan labaad waxaa waaye adoo dhibsanaya inaad samaynaysid wixii oo qofka wuxuu ku leeyahay waxaas ii samey, meel hebel ii raac, inaad diidi karin ood raacaysid, oo markaad raacdid qofkii amba wixii uu kaa dalbaday aad u samaysid hadhow aad ka shalaynaysid oo adoo daalan aad imaanaysid, adoo maxay markii horeba si niyad ah ma aadan rabin, laakiin waxaad diidaysaa qofkii inaad dhahdid maya diidaysaa soo maha asagan. marka oo markaad imaatid aad ka shalaayid aad tiraahid ma ahayn qofkan inaan saan u sameeyo, ma ahayn, waayo wixii adiga waxaa kaa soo gaaraya dhibaatadaas mararka qaar ha noqoto waqtigaagii oo adiga aad ku dhumisay oo wax kale aad ugu baahneed, ha noqoto daal nafsaani oo kusoo gaaro, ha noqoto wax unbaa kaa soo gaaraya oo markaa imaatid oo mashalayda oo matiraahdaa qofkan inaan saan u sameeyo ma ahayn. ma labadaaseeti carab jalqin ay ugu dhacday, labadaas ma kugu dhacdaa? haddii ay jawaabtaada haa tahay, yani dadkii waxaad ka mid tahay dadka inbaadkaa tahay. dadka inbaadka maa wax xun, dad aad wanaagsan waay maasha allah tabaarakallah dad, laakiin waxaa waa caatifadii ayaa foorta. tan saddexaad, ma aqrin kartaa qofka asagoo physically aan ku muujinin waxa uu kaa rabo amba waxa uu dareemayo isagoon ku muujinin? ma aqrin kartaa? tusaale qof ayaa jidka maraa iska hor imaateen, ma dareemi kartaa oo ma aqrin kartaa waxa uu yahay? amba gurigaaga kuu imaaday asagoo caadi kuu salaamayo, ma dareemi kartaa waxa uu dareemayo amba waxa gudihiisa uu ka yahay? masalan qof murugaysan waaye jidkaa ku aragtay maanta oo dhan inuu kuu soo dhaco adhees qofkaas alla qof dhibaataysan waaye, alla heblaayo maanta way iska qoslaysaa, laakiin gudaheeda caadi ma ahan. ma dareentay gudaheeda qofkii amba gudihiisii ma dareentay qof saaxiib amba walaal amba qof intaa islaanteen asagoo physically aan waxba kuu muujinin oo caadi isaga kaa dhigaayo ma dareentay oo maxay ahayd ma dareentay oo ma aragtay oo ma tiri qofkan waxbaa si ka ah? xataa qof aad aqoon intuu jidkaaga hor imaaday iska socdo ama meel kofe iska cabaayo, ma tiri alele qofkan waxbaa si ka ah? noocu doon ha ahaado dareenkaas, amba qof caadi aan ahayn oo murugaysan ahaado amba qof wanaagsaneen, noocuu doon adiga aad wax uun ma dareentay oo noocaasiiti? amba haa haddii ay tahay jawaabtaada waxaa waaye dadka inbaadka ah. haddii ay maya tahayna waxaa waaye kulligood maha, mararka qaar dadka caadiga xataa waxaa waaye qayb ka mid ah su-aalahan haa way noqon kartaa, ool maahan. laakiin haddii kulligood ah haa ay dhahdo, qof waxaa tahay dareenkiisa caatifadeed uu aad u sareeyo ayaa tahay. tan afaraad, ma neceb tahay buuqa iyo zaxmadda? buuqa iyo zaxmadda ma neceb tahay? iyo codadka dhaadheer iyo maxay ahaatay iftiinka aadka u badan iyo isdhexyaaca iyo haddii aad neceb tahay haa amba may waa ayadana. tan shanaad, ma dhacdaa inaad fahantid hadalka
dadka iyo hadalka qofka uu ku dhahayo iyo niyadiisa oo isdiidan mararka qaar waxaa jira qofka inuu hadalka ugu dhaho gudihiisina wax kaleenta uu kaaga qabo ma dhacdaa inaad fahamtid amba aad dareentid qof ayaa wuxuu ku leeyahay tusaale anigu waa ku jeclahay laakiin gudihiisa xiqdi iyo xumaanka uu haayo wal aadaama ma dareentaa qofka in hadalkiisa iyo gudihiisa amba niyadiisa ay iska hor imaanayaan amba wax uu ku nifaaqayo munaafaqnimo ma dareentaa inuu wax ku leeyahay waxaasna gudihiisa wax kaleenta ma ka aragtaa tan shanaad taas waaye tan lixaad ma dareentaa inaad dadka ka duwan tahay yaa macnaheedu maaha inaad ka kibir badan tahay laakiin mararka qaar ma isweydiisaa adiga maxaa tahay adiga dadkan inaad ka duwan tahay ma dareentaa dadka guriga aad la joogtid familkaaga dadka bannaan adduunka oo dhan markaad baxdid waxaad leedahay adiga dadkan waa ka duwan tahay inaad ka duwan tahay ma dareentaa maahan kala duwanaanshaha oo kii maahan oo narsisiistaha maahan laakiin waxaad dareemaysaa dadkan inaad ka duwan tahay ayaad dareemaysaa tan toddobaad ma dareentaa inaadan ahayn qof caadi ah ayadana su-aal kaleenta waaye maaha laakiin tii oo narsisiistaha ma ahan oo maxay ahayd ani caadi mihi dadka waan ka ahay maaha laakiin qof caadi ah ma ihi ma dareentaa oo mararka qaar makugu soo dhacdaa caadigaasayto ah inaad dareemaysid wax badan oo dadkaan ay iska socdaan oo waxba aanay u fiirsaneen oo adiga wax walba u fiirsanaysid oo adiga culeys uu ku saaran yahay oo adiga wax badan aad arkaysid oo wax badan aad ka aragtidaada ay fog tahay ay qoto dheer tahay oo maxay ahayd dhimrintaadii naxariistaadii aad leedahay adiga dadkaan waa ka duwan tahay zamanka cajiibka ah qofka oo imbaadka ah dunida meelaha qaar markuu tago wallahi waxyaabo cajiib ah markuu arko wuxuu isleeyahay maya adiga dadkaan iyo adiga isku nooc ma tihiin adiga intee ka imaatay ma isweydiisaa su-aashaaseti tan sideedaad ma iska soo qaadaa qofka haddii aad aragtid qof dhibana aragtay waxaa aragtay qof murugeysana aragtay qof xaalad xun ku jira aragtay qofka amba waxba qof baa wax si ka ah ma iska soo qaadaa oo asagoo kaleenta booskiisa naftaada ma geysaa oo ma isdhahdaa amba xataa qofka markaad la dhaqmaysid ma isdhahdaa qofkan sida adiga aad jeceshahay oo kaleenta inaad ula dhaqmaysid ma ula dhaqantaa oo qofka ma iska soo qaadaa naftaada ma ka soo qaadaa hadday noqoto daryeel xataa hadday noqoto falcelin naftaada oo kaleente ma ka soo qaadaa dadka kaleente haa iyo maya waa iyadan tan sagaalaad ma kugu adag tahay inaad weydiisid waxa aad rabtid ma kugu adag tahay inaad weydiisid waxa aad rabtid dadka waxbaad u baahan tahay waxbaad rabtaa inaad dadka wax weydiisid laakiin haddana ma awoodid oo ma weydiin karto wax xishoonaysaa waxaad leedahay mararka qaar waxaa leedahay ama dadka aad kaliftaa masalan guriga xataa waxyaabaha yariiska ma waxaas wax weyn waxyaabaha yariiska xataa gurigaaga waxaa laga yaabaa maanta in ay kaa dhamaatay cusbaa kaa dhamaatay waxbaa kaa dhamaaday dariska inaan dooni karin oodan dhihi karin ma dhacdaa oodan dhihi karin isiiya adoo ka xishoonayo laana cusbadii ag soo qaada dariska amba wax macno aan lahayn liin oo kale basal daris adi waxaa liska adeeganaa soo maha inaad diidaysid inaad dhibsatid inuu ku dhibsado qofkii ama u haynin ama adiga ay kugu adag tahay ma kugu adag tahay oo dhib kugu noqota inaad wax weydiisatid dadka ma kugu adag tahay inaad wax weydiisatid dadka tan sagaalaad taas waaye tan tobanaad waxaa waaye ma kugu adag tahay inaad naftaada aad cabirtid oo tiraahid aniga hebel aniga heblahay aniga saan ma kugu adag tahay ayadan inaad iska cabirtid oo iska sheekaysid oo mar walba aad cabirtid naftaada ma kugu adag tahay mase caadi aad aragtaa oo meel walba aad tagtid halay arkaa dhahdaa way ku sahlan tahay inaad tiraahid halay arko aniga waa joogaa inaad tiraahid ma ku sahlan tahay mase way kugu adag tahay oo waxaa tahay markii dadka meelaha ay tagaan qof fariisanayo meel koona ah oo maxay ahayd aan fariisanaynin meelaha wasadka ah oo dhexda oo maxay iftiinka iyo dadka toos ay u arkayaan aan fariisanaynin oo haddana aan cabiraynin naftiisii oo ma ku adag tahay inaad ka sheekaysid oo maxay ahayd aan dhihi karin yani inay kugu adag tahay inaad naftaada aad ka hadashid haa iyo maya waa ayadan imtixaanka waa dhammaaday ilaahay subxaanahu watacaala imtixaan adduunye imtixaan aakhir barta allah naga gudbiyo nolosha imtixaan waaye kii aakhiran waxaa waaye ilaahay hanoo saqaro insha allah biidni illaahi alkariim kan imtixaan waxaa waaye ciyaar leh waa sama ciyaar waa
وعيار وحواي برا شخصية داد ما حواي وح اسكا إيسي ولكن امتحانك أدونك كي آخرة الله نموتي كان أدونك وحواي أسجن واسك مودينا كان أدونك هدان لجيريوني أيدي إلى ونحرست حدي جرتي موت أيا لمودي كرين وح كلا أنت ولا مودا هدي موت أو إماذا وحواي ولا مودا يسمع مودا إماذي ميلو مودا ما لك وح كلا أنت طان ولا مودي كرا مركا امتحانك أدونك كان آخر الله نقول بيه كان أدونك وحواي موت لي وح كلا طن ولا مودا هدي موت إماذا لكن ولا مودي كرا وأرجينا إن تكهشين فيديوغا يوم حياتو حياة ما أنسو دياري سؤالها وهدي أتكهشت لايك صار مهم واي لايك تادا رأيقاق هو مهم جوغتانك أدنا لجوغتت وكسي مهم سيها واي عائلة ديدا بفمل كيغا آياتين سو داد حواي سبحان الله isdoortay oo maxay ahayd idinka doorashadiin aad igu imaateen oo aan dareemayo inaad ka mid tihiin qayb ka mid ah familkeyga ayaan dareemayo run ahaantii markii laga hadlaayo dadka qaar aad u tirsadaa oo xataa waa aqaana xiblahay iyo hebel iyo hebel iyo hebel waxaa u maleeyaa inay dadka kale inta iga dhow yihiin waa aqaanaa maasha allah tabaaraka allah yani waxa waaye nicmooyinka ilaahay loogu xamdiyo waay nicmooyinkii rariiska ah heesana ilaahay aan ugu xamdineyno iyo kuwa waaweyn in qof aadan aqoonin uu ku jeclaado adigan adoon aqoonin qoraal kaliya aad ka taqaanid inaad qofkaas aad ka jeceshahay dadka kaleente qoraalada iyo suu wax u qoraa iyo suu wax u hadlaya dareenkii aad fahamtay qofkaas nooca uu yahay iyo shakhsiga uu yahay amba shakhsiga ay tahay oo adigana subxaan allah aad u arkaysid qayb ka mid ah familkaaga amba walaalaha oo kaleente oo xataa markaa waysid aad niid aad ka dawaysid waa idin salaamaya kulligiina waa idin salaamaya asxaabteeda qaaliga meel walba joogtaan adduun iyo aakhiraba waxaa waaye ilaahay ku nicmo ku noolaado allah naga dhigo haddii ay tahay videogan markii kugu horeyso aad arkaysid fadlan nagu soo biir subscribe noo dheh muhiim waaye kanaalka inaad balaarisaan soomaali weyn haddii aad tihiin mas-uuliyidiin waayo aniga qayb idinka mid ayaan ahay gabdhiina ayaan ahay soomaa amba hooyadiinaan ahay amba walaashiinaan ahay amba gabdhiinaan ahay in kastoo inta badan maxay ahayd walaal iyo waalid a idiin noqonayo oo maxay ahayd social media dadka aadka waaweyn iska yaryihiin ay aad ku daawadaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jaa